bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walba oo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka qeybta labaad daawadayaal barnaamijkeenna ayaynu gudagelaynaaye dowladda sacuudiga ayaa shaacisay in ay dooneyso xilligan inay iibsato diyaaradaha bayraktaar t b ee turkiga uu farsameeyo kadib markii dowladdani ay sheegtay in diyaaradahani ay uga maarmi doonto diyaaradaha migaga ee maraykanka uu farsameeyo kuwaas oo wax ka qaadi waayey dagaalyahanada xoutiyiinta ee ka dagaalama gudaha wadanka yemen qoraal ka soo baxay dowladda sacuudiga waxaa lagu xaqiijiyey in wadahadal arrimahan ay kala geli doonaan dowladda turkiga si markaasi ay u iibsadaan diyaaradaha bayraktaar t b kuwaas oo ay aamineen inay yihiin kuwa keliya ee meel lagu saari karo xoutiyiinta yemen waxaana la filayaa in heshiis arrintan ku saabsan iyo inta diyaaradood ee sacuudiga uu rabo ee la isku fahmo iyada oo markan ay u muuqato in dowladaha carabta ay usoo wada cararayaan diyaaradaha bayraktaar t b kuwaas oo laba tijaabo oo waaweyn ku guuleystay tijaabooyinkaasi waxa ay kala ahaayeen dagaalkii ka dhacay wadanka libiya iyo sidoo kale dagaalkii ka dhacay gobolka nagorno karabakh waxa ay ka qaateen kaalin lama filaan ah guulihii waaweynaa ee ay gaareen ciidamada azerbaijan waxaa keenay diyaaradaha bayraktaar t b kuwaas oo ka dhex dusaya raadeerada caalamiga ah oo aanay soo qabanin keliyana laga warhelayo diyaaradahan oo goobtii loogu talagalay dul taagan islamarkaana duqeymo fulinaya turkiga ayaa sii xoojinaya teknolojiyadda uu kusii horumarinayo diyaaradaha bayraktaar t b kuwaas oo horumar weyn laga gaaray waxaana la filayaa dalal kale oo carabeed iyaguna in ay sidan oo kale dalab usoo sameeyaan barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socotaan markhaati t v ayuu idinkaga imaanayaa bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dagaaladii saaka iskula jarmaadeen ciidamada suudaan iyo kuwa ethoobia ilaa gabaldhici maanta ayaa lagu soo waramayaa dagaaladaas inay ahaayeen kuwa soconayay welina waxaa la maqlayaa rasaas xoogan oo labada dhinac isweydaarsanayaan 11 qof oo labada dhinac ah dagaalamaya ayaa lasoo wariyey in ay ku geeriyoodeen iyada oo guulo ay kala sheeganayaan kornel cabdiraxiim ibraahim oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee dowladda suudaan waxa uu sheegay in iska caabiyeen ciidamada ethoobia oo dhowr jiha kasoo weeraray waxaana uu tilmaamay in ay dileen in ka badan 6 askari oo ciidamada ethoobia ah sidoo kalena waxa uu sheegay inay ka gubeen gaadiid dagaal hubna ay ka qabsadeen waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku sheegay warar ay baahinayeen warbaahinta Ethiopia oo ay ku sheegayeen in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen aagag ay ku sugnaayeen ciidamada wadanka Suudaan waxaana uu tilmaamay in dhul ay qabsadaan iska daaye ay iyagu ku sii saqeen aagag hor leh dibna ay u riixeen ciidamada wadanka Ethiopia saraakiisha Ethiopia dhankooda guula ayay sheegteen waxaana ay tilmaameen in hadafkii ay ka lahaayeen weeraradaasi ay gaareen laakiin weli xaaladdu waxay tahay mid aad u qasan dagaalkuna ma aha mid joogsaday oo xilli walba waxaa la fili karaa dagaalka in uu intan kasii kharaaraado iyada oo labada dhinacna ay ciidamo fara badan oo gurmada u kala imaanayaan sidoo kalena dagaalka uu u muuqanayo mid markan faraha la iskula sii tagayo oo kasii xoogeysanaya qaababkii hore ee dagaalkaasi u socday wixii kusoo kordha daawadayaal wararka dambe ee barnaamijyadeena markhaati t v ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo insha allah waa hagaag goordhow daawadayaal waxaa inoo soo socda netanyahu oo laga xirtay hawadii uu u mari lahaa dubay hase ahaatee arrimaha suudaan ayaynu sii eegaynay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada qaahire ee caasimadda wadanka masar ra-iisul wasaaraha suudaan iyo wafdigiisa waxa ay la socdeen diyaarad gaar ah oo ay kaga soo ambabaxeen dalka sacuudiga oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ay ku joogeen wafdigaasi oo 2 maalmood joogi doona qaahira waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda maaliyadda qorsheynta dhaqaalaha caafimaadka arrimaha golaha wasiirada waraabka iyo kheyraadka biyaha agaasimaha hay-adda socdaalka iyo mas-uuliyiin kale wafdiga ra-iisul wasaare xamduug waxaa garoonka ku qaabilay dhigiisa dalka masar mustafa madboli iyaga oo yeelan doona kulan wadajir ah oo looga hadlayo xiriirka iyo danaha labadooda dal masar ayaa ah dowlad aad u taageerta dowladda suudaan kana taageerta arrimo badan iyada oo dhowaanna wadankaasi suudaan uu gaaray madaxweynaha wadanka masar cabdilfataax al sisi isaga oo ballanqaadyo waaweyn u sameeyey dowladda suudaan bal markana aynu eegno daawadayaal
ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa dib u dhigay booqasho taariikhi ah oo la filayay inuu ku tago Imaaraadka Carabta kadib markii uu culays ka yimid hanaanka qorsheynta duulimaadkiisa ee hawada Urdun. Netanyahu ayaa Khamiistan la filayay in uu halkaasi u duulo si uu la soo kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Imaaraadka Sheekh Mohammed bin Zayed. hase yeeshee xafiiskiisa ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Urdun ay daahiyeen fasaxii la doonayay in ay hawadooda ugu ogolaadaan muddo dhowr saacadood ah. Arrintan ayaa timid hal maalin kadib markii lagu soo waramay in dhaxal sugaha boqortooyada Urdun uu joojiyey safar uu damacsanaa in uu ku tago magaalada Qudus. Tallaabadaasi ayaa daba socotay muran soo kala dhex galay Israa'iil iyo Urdun. wafdiga boqortooyada ayaa ka laabtay bar control oo ay Israa'iiliyiintu maamulaan kadib markii lagu murmay tirada ilaalada ee raacaysa amiirka sida laga soo xigtay warbaahinta Israa'iil. waxaa la sheegay in markaasi kadib ay dhibaato soo wajahday qorsheyntii safarka Netanyahu ee uu ku adeegsan lahaa hawada Urdun, inkastoo dowladda Urdun ay ka gaabsatay inay ka jawaabto markii arrimahaasi wax laga weydiiyey. Tallaabadan amiirka Urdun iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil mid walba looga baajiyey safarka ayaa ka dhigan khilaaf diblomaasiyadeed oo labada dal soo kala dhex galay sida la sheegayo. xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in dowladda Urdun ay markii dambe ogolaatay in hawadeeda la isticmaalo, balse xilligaasi uu ahaa mar uu safarka ra'iisul wasaaraha baaqday oo aan dib loo qorsheyn karin. Ilaa hadda wax war ah oo arrimahani la xiriira kama aanu soo bixin dowladda Urdun. dalkan ayaa ahaa kii labaad ee Carabta ka tirsan oo Israa'iil heshiis nabadeed si rasmi ah ula saxiixda sanadkii 1994 tan iyo xilligaasna xiriirkoodu mararka qaar ayuu mugdi galayay. safarka Netanyahu oo noqon lahaa kii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaare Israa'iil ah uu ku tago isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u muuqday mid taageero siyaasadeed siinaya siyaasigan ka hor inta aan doorashada guud la qabanin dabayaaqada bishan. isutaga Imaaraadka wuxuu ka mid yahay 4 wadan oo Carbeed oo sanadkii la soo dhaafay heshiis la galay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxdana la sameystay Israa'iil. saddexda dal ee kale ayaa kala ah Bahrain, Suudaan iyo Morocco. gudahaan daawadal intaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka falanqeynta xogta caalamka. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.